waxay ku shaqaynayaan shaxdi madaxweynaheena shookaanta inoo haye waxay ku shaqaynayaan shaxdi madaxweynaheena shookaanta inoo haye calanka tawxiidku shaqlan shareecada iyo dastuurka ayay ku shaqaynayaan iskaashigu guusha weeye waxay ku shaqaynayaan shaxdi madaxweynaheena shookaanta inoo haye waxay ku shaqaynayaan shaxdi madaxweynaheena shookaanta inoo haye calanka tawxiidku shaqlan shareecada iyo dastuurka ayay ku shaqaynayaan iskaashigu guusha weeye shaqaalaheenu iyana waa shaahidkeena mashiikhya shawmid wada shabsadu way kala caddaane ilaaliya wada shaqaynta shaydaaniyo shuusha baxo ugu horreyn waxaan salaamayaa guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha agaasimayaasha guud shaqaalaweynaha hay'adda shaqaalaha madaxa mashruuca World Bank Cabdi Aadan iyo dhammaan marti sharafta kale halkan ka soo qayb gashay kulli kulanku sida aad arkaysaan wuxuu ku saabsan yahay maanta waxaynu furaynaa xogta kaydka shaqaalaha dawladda ama archive-ka ay leedahay civil service runtii waxaa muuqanaysa inaynu qaadnay dariiqa dhismaha hay'ad dawliya oo waxtar leh dariiqaas waa dariiq muddo dheer aad ku soo jirteen dadaal badan aad u soo gasheen waana idinku mahadnaqaynaa in maanta aynu soo gaadhno in xogta qof kastoo shaqaale dawladeeda lala socday noqoto mid kaydsan runtii waa mid horseedaysa cadaalad waa mid horseedaysa nidaam dawladnimo oo dhidban waa mid horseedaysa isla jaanqaad shaqo isla xisaabtan iyo mas'uuliyad shaqaalaha laftirkiisa ay saaraan waa runtii shaqo wanaag bay keenaysaa marka qofka la yiraahdo xogtaadii shaqo ayaa la kaydinaya oo la hayaa in marka xog la helo oo xogta la kaydiyo waa arrin runtii muhiim ay tahay waliba ay tahay in loo sacabtumo haddii tallaabada aynu qaadnay xogtii shaqaalaha dawladda haddii la sugay oo macluumaadkeedu dhammaystiran la hayana waa arrin runtii guul weyne weeyi xogtaasi la kaydiyey siyaabo fara badan baa runtii looga faa'iideysan karaa ma aha kaliya in la kaydiyo inaanu ururinayno hayno laakiin xogtaa waxaa laga soo saari karaa cilmi baarisyo fara badan oo dalkeen iyo dadkeennaba anfaca ujeeddada laga leeyahay in la sameeyo aasaaska kayd xafiiska kaydka xogta shaqaalaha dawladda waxaynu doonaynaa maadaama aynu ku jirro nidaamka dib u habaynta shaqaalaha dawladda sidoo kalena qorshaheennu yahay in la helo kayd xogeed oo shaqaalaha oo ka soo bilaabmaya maalintii qofka shaqaalaha shaqada la qoray warqaddii lagu qoray kaadhkiisa muwaadinnimada CV-giisii dallacaad hadduu helay warqaddiisii dallacaadaha iyo wuxuu soo maray performance appraisal reportkiisii oo ahaa qiimayntii howlqabadka ee uu soo sameeyey wixii aan shaxmarin uu qaatay dhammaan xogta ku saabsan qofka shaqaalaha dhammaanteed hadduu caafimaad galay hadduu fasaxyo galay in xogteeda laga helo xafiiska kaydka xogta shaqaalaha ee arkiifka shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka waxa ku xiga oo hard copy oo arki doono xariga ka jari doono maanta in la sameeyo isagoo soft ah oo electronic ah oo la sameeyo human resource information system la geliyo kan wuxuu gogol xaad u yahay in xogta dhammaanteeda la geliyo ejaramaska oo qofka marka koodkiisa lagu dhufto dhammaan waxa aan sheego dhamay soo baxaan ay dabada u soo baxaan xataa hadduu dhintay qofkii dhintay haddii xaqiisii la siiyey iyo inay fududayso barnaamijka 2020 ay noo bilaabmaya ee pensionka ee hawlgabka qaranka in xogtiisii aasaas u noqoto halkii laga soo bilaabay qofka haddii xaq la siinayo loogaado maalintu shaqada soo galay maalintu ka baxay waa markii ugu horeysay taariikhda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nidaamkan in la hirgeliyo awal madax taabashada aasaas u ahayd oo inoo hirgashay waxa kale oo iyadana aan suurto gelinaynaa inaan kaydka xogtaynu sameeynayna ee faylasha lagu gurayo maanta ee halkan aynu dhax furi doono iyo ejaramaska serverka ah aanan ku koobin ee haddana aanu sameeyno inaanu cloudka e-cloud
aanu ka iibsanno ama aanu ka diyaarsanno kayd xogeed oo haddii labadaasiba wax noqdaan oo masal ilaahay kama dhige xogta kaydka ee hard copy-ga wax noqoto ama serverku wax noqdo inay xogta shaqaalaha guud ahaan 30,000 waxay doontaa noqoto inay hawada ku jiraan waxa dib loo gelinayaa oo la audit gareynayaa payroll-ka la isticmaalayaa sax ma ku yahay ma laga saaray wixii ku jiray marka waxaan ku samaynaynaa serverka yaga iyo archive-ka yaga iyo daatada cloud-ka ku jirta saddexdaba in cleaning lagu sameeyo oo data cleaning lagu sameeyo si loo helo xog sax mar walba oo tafatiran loo sameeyo oo laga saaray wixii dhintay wixii shaqada ka tagay wixii transfer qaatay wixii maxaan ku dhahay shaxmari la siiyay wixii la dalacsiiyay wixii mushahar loo kordhiyay inay update noqoto biin Allah ta'ala ka maanta waxaan ku qaybinaynaa 20kii wasaaradood soo 20 maaha ee ugu horeeyay ee data cleaning aan ku sameynay marka muddadii ka soo wareegtay xilligii madax taabashada kuwa kalena sida ugu dhaqsaha badan baa loo sameynayaa waxaan rajaynayaa agaasimayaasha guud inay daatada eegaan waxay ku shaqaynayaan shaxdi madaxweynaheena shookaanta inoo haye waxay ku shaqaynayaan shaxdi madaxweynaheena shookaanta inoo haye calanka tawxiid ku shaqlan shareecada iyo dastuurka ayay ku shaqaynayaan iskaashigu guusha weeye waxay